qaar ka mid ah dhalinyarada iyo aqoon-yahanka ka soo jeeda deegaanada gobolada Awdal, Sanaag iyo Buuhoodle ayaa waxa ay tacsiih iyo baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ah ee ay dirirtu ku dhex marayso gobolka Sool. dhalinyaradan ayaa waxa ka mid ah siyaasi Cabdicasiis Aadan Jalawo, injineer Cabdirasaaq Axmed Cabdi Caburiye iyo Maxamed Barkhada, waxaanay cod dheer ku sheegeen khasaaraha ka dhalanaya iyo sida aanay faa'iido lahayn khasaare mooyaane dagaalada iyo diriraha dhexmara dadka walaalaha ah ee oodwadaagta ah. dhalinyaradaasi iyo aqoon-yahankaasi oo tacsidaas iyo baaqa nabadeed diraya ayaa waxa ay yidhaahdeen: bismillaahi raxmaani raxiim, salaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin, allahumma salli calaa sayyidina Maxamed. waxaan maanta halkan baaq uga jeedinaynaa, baaqaas oo ah baaq nabadeed beelaha walaalaha ah ee dirirtu ku dhex martay deegaanka Dhumay ee gobolka Sool. labada beelood ee walaalaha ah oo arrintoodu soo noqnoqotay oo waqti dheer socotay oo xalkeedii mar walba xal laga gaadhayay, haddana colaadaasi soo noqotay. ilaahay waxaan u baryaynaa inuu ilaahay kala qaboojiyo. beelaha walaalahana waxaan ugu baaqaynaa inay colaada joojiyaan oo nabadda qaataan oo samaha ka shaqeeyaan. beelaha walaalaha ah waxaanu leenahay, war miyaa laydinka waayay waxgarad? war miyaa laydinka waayay guurti? war miyaa laydinka waayay haldoor? haddii raggii uu noqday badankiisa kuwa qorigiisu sitay maalin walba tobaneeyada 20 30 walaalaha ah dilaya ee ubadkiisa agomaynaya, war hal nin 2 nin oo nabadda isu taaga oo arrintaa dhameeya miyaa laga waayay? waxaan leeyahay dagaalkaasi wuxuu u joogsanayay rag buu waayay. reerahana labada beeloodna waxay u muuqanaysaa sawirka ka baxaya oo noqonaya inaanay ku jirin wax waxgarada ama guurtiya ama caqli leh oo caqli u saaxiiba. lagama weyn taliye ka taliya samaha lagama waayin oo labada beeloodba joojiya way joojin karaan. waxaan ugu baaqaynaa nabad. war kuwiina hoggaanka ah, war kuwiina madax dhaqameedka ah, war kuwiina siyaasiga ah, war kuwiina baayac mushtarka ah, war kuwiina aqoonta leh, war kuwiina caqliga u saaxiibka ah, haddii ay idinku jiraan isu taaga nabadda oo xidha oo kala badbaadiya wiilasha walaalaha ee dhiigooda daadinaya, kala badbaadiya oo garta wixii alla idin abuuray, caqligiina ka shaqeeya. waa haddii aydan lahayna dadka kala gelaya, walaalnimo ku gelaya, islaamnimo ku gelaya, Soomaalilandnimo ku gelaya, islaamnimo ku gelaya. wartalow colka jooja, hadalka waan badiyay. waxaan leeyahay ilaahay ha qaboojo colaada, ilaahay ha dabiyo colaada mid kasta oo timaado oo geeyeen oo Soomaaliland ama gebi Soomaaliyeed ama dhiig islaam oo meel kasta daadanaya, ilaahay ha joojo. oo mid bini aadam oo daadanaya, ilaahay ha joojiyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam. marka hore ilaahay baa mahadle. waxaan jeclaystay maanta inaan halkan baaq ka diro, baaqaasoo ku saabsan beelaha walaalihiina ee ku dagaalamaya gobolka Sool, gaar ahaan degmada Dhumay. beelaha walaalaha waxaan ugu baaqayaa colaadda inay iska joojiyaan. colaadda wiil baa ku dhintay ee wiil kuma dhasho, waa beelo walaala. inay xalka isla gaadhaan oo dhibaatada dhex taala sidii loo xalin lahaa ay sameeyaan
oo hawlaha iyo dagaalka iyo dhibta maalin walba ay dadku kaga dhimanayaan intaas oo qof ay kaga tagayso inay iska daayaan walaalaha kale Soomaaliland waxaan ugu baaqi lahaa inay sidii loo gurman lahaa ee hawsha looga qayb qaadan lahaa ee dhiiga daadanaya loo joojin lahaa in dhammaan gacmaha loo wada qabsado oo hawshaas laga wada shaqeeyo baaqaas wuxuu ku saabsan yahay in hawsha ama dagaalka si ciidan la kala dhex dhigo oo si degdega hawshaas looga wada qayb qaato loona damiyo hadhowna lagu dadaalo in uqaal iyo waxgarad iyo aqoon-yahan dhammaan dadka Soomaaliland oo dhanba sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen oo colaadda u joojin lahaayeen ee beelaha walaalaha nabad daa'ima oo jirtay ilaa weligeed looga shaqayn lahaa loona dhexdhigi lahaa halkan waxaan baa uga direynaa nabadeed uga tacsideena beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya gobolka Sool gaar ahaan degmada Dhumay anagoo ah dhalinyaro ka soo kala jeeda gobolada Soomaaliland sida Sanaag Buuhoodle iyo Awdal waxaan leenahay baaq waxba idin tari maayo cid kalena waxba idin qaban kar mayso hadeedin idinku isu qaban hadeedin idinku ka waan toobin dagaalkan soo noqonaya maalin walba 50 wiil 60 wiil 70 wiil ku dhimanayaan dawladaba ka dhiman idinka ka dhimanayaan idinkoo family oo isku reera oo walaala oo degmo magaalada degan oo ilmaabti iyo ilmaadeer iyo abti meerana waxaan aaminsanahay dawladna waxba ka qaban kar mayso baaq la diro iyo uqaal iyo waxba ka qaban kar maayaan waxa xal ka gaari kara oo wax ka qaban kara barnaamijyada idinka dhexdiina guurtiga dhalinyarada wax garadka culimada ka soo jeeda labada beelood uunba wax ka qaban kara annagu waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilmaada reeyal ilaah baan ku dhaarinay waxaan xal ka gaara oo beelaha idin la degan ee walaalihiina jaarka ee Soomaaliland wax ka barta ma arkaysaan Soomaaliland bari mooyaan meel kale oo maalin walba ka dhacayaan galbeed koonfur iyo waqooyi bay leedahay Soomaaliland meel kasta qabiilada in ka badan baa degan qabiilada la mid ah degan walaaladiina mana dhacayso 50 wiil iyo 100 wiil iyo 30 wiil oo dhaawac ama dhimasho lama arkayo waana sib daro in ilaa 2004 iyo ilaa 2019 xal ka gaadho weydaan dagaalkaas soo noqonaya waxaan u arkaa in dawlad ka gaabsan ugu malayn maayo in odayaal ka gaabiyeen u malayn maayo waayo inta way tageen idinka ka gaabiyay dhexdiina odayaashina ka gaabiyay war meedin odayaal wax garada iyo dad aqoon leh iyo dad ilaahay ka baqay midna ahayn war waa in ilaahay laga baqaa waa in diinu idin xidhaa waa in dhaqan idin xidhaa waa inaad fikirtaan maskaxdiinu shaqeysa anagu hadal baan idin jeedin kareena oo idin tacsiidin kareena laakiin waxa laho aanu ka idin gaar kareena ma jirto aad iyo aad baan uga xumahay dagaalkaas waxaan leenahay ku soo koobaya war dadka walaalihiina Soomaaliland la degan wax ka barta oo nabadu waxay tahay iyaga oo wax ka barta